ciidanka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ayaa gacanta ku soo dhigay nin sitay dharka dumarka. ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ayaa howlgal qorsheysan oo ay ka sameeyeen magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxa ay gacanta ku soo dhigeen nin xirnaa dharka dumarka. ninkaasi ayaa saraakiisha ciidanka nabad sugidda Jubbaland waxa ay ku sheegeen in sidoo kale uu la baxay magaca Farxiyo Okay isla markaana guri ku yaala magaalada Kismaayo laba habeen uu la seexday laba dumar ah. hay-adda nabad sugidda dowlad goboleedka Jubbaland ayaa wali wada baaritaan ku saabsan ninkan isku soo ekeysiyay dumarka, waxaana la sheegay in hadda uu ku jiro mid ka mid ah xabsiyada ku yaala magaalada Kismaayo halkaasi oo uu ka socdo baaritaan ballaaran oo ku aadan ninkan iyo sababta keentay inuu xirto dharka haweenka. waxaana ay saraakiishu sheegeen in baaritaankooda kadib ay warbaahinta la wadaagi doonaan waxa ka soo baxa.